awaa dalka Itoobiya kadib markii lagu xukumay 7 sano oo xarig ah iyadoona maxkamad ku taala dalka Itoobiya ay xukunkiisa riday dadaal dheer ay sameysay dowladda Soomaaliya ayaa lagu guuleystay in la soo daayo wariyaha cafisna ay u fidisay dalka Itoobiya waxaa garoonka magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan iyo baha saxaafadda qonsulka Soomaaliya ee dalka Itoobiya Cabdullaahi Xaaji Warfaa oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in safaaradda Soomaaliya ee Itoobiya ay ku guuleysatay sii deynta wariye boqorka bartamaha waxaan rabaa inaan xaqiijino dadaalkii dawladdu ay gashay ee madaxweynuhu ugu horeeyo ra'iisul wasaaruhu uu ku xigo iyo qaybaha kale ee dawladda inuu maanta midho dhaliyay arrintan waxay daba taagneyd dadaal badan runtii aad u dhib badan oo loo galay maxaabiista Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan ku xidhan ee adduunka oo Itoobiya ka mid tahay waxaad la wada socotaan muddo hadda laga joogo waxaa u suurta gashay dawladda Soomaaliya inay dib u la soo noqoto 114 ku xidhnaa jeelasha Itoobiya gaar ahaan Jigjiga iyadoo taa la daba socdo madaxda qaranku kamayna hadhin inay ku sii daba taagnaadaan intii ku hadhay in laga soo saaro oo uu ka yahay boqorka bartamaha Maxamed Aweys Mudee boqorka bartamaha oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inuu u mahad celinayo cid walba oo ka qayb qaadatay soo deyntiisa isagoona si gaar ah ugu mahad celiyay dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya qarni waliba sabinkii qasad timid basubaxid waxaan ilaabi karin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo presidenta Soomaaliya oji waxa weeye maanta ninka diiradda saaran maanta jawiga Soomaaliya wax ka bedelay ma had gaar waxaan ugu celinayaa dadaalka ay galeen asaga iyo ra'iisul wasaaraha dawaas ka taqaanayo xataa cali khayr malka leeyahay erayga dambaan qaadanayna khayr baan qaadanay agaasimaha guud ee wasaaradda warfinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay soo deyso dowladda Soomaaliyeed iyo hoggaanka sare ee dalka ayaa mahad iskale sidaad arkaysaan Maxamed uu caafimaad qabaa bahda saxaafadda sidoo kale wasaaradda ahaan waxaan uga mahad celinaynaa runtii dhiirigelintii iyo dabagalka ay sameeyeen dowladda Soomaaliya ayaa waayihii dambe waxay waday dadaalo lagu soo deynayo maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalalka caalamka iyadoona horey maxaabiis badan uga soo deysay dalka Itoobiya Axmed Suleymaan on Cable TV